anigu safar shaqo ayaan ku maqnaa shirkii shalay 8 barkii aroornimo aanu fadhiisanay saaka 8 baanu ka soo baxay hawlaha qarankaanu ku maqnay African Unionka intii aan maqnaa ayaa waxa halkan ku soo kordhay war naxdin leh geerin naxdin leh muwaadin aqoonyahan Soomaaliyeed oo ka tirsanaa bahdiina ayaa wuxuu ku dhintay xaalad aad run ahaantii u guracan geeridu waa xaq oo la wada dhimanayaa laakiin inta hordhaca aanu ka hayno duruuf aad u adag ayuu marxuumkaas magaciisa la yiraahdo Cabdinaasir Muuse Cabdiraxmaan Dahable oo ku dhintay marka anagoo hawlo adag ku maqan marka warkaas nagu soo dhacay ahmiyad leegtii aanu haynay ayaa arrintan noo yeelatay waa sababta aan toos ugu imi goobtii uu ka shaqeynayay iyo bahdii uu la shaqeynayay wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah oo sida dadku badi ay sheegayaan aad iyo aad u edaab iyo anshax wanaagsan aqoon badan dadaal badan waxtar badan wuxuu ahaa muwaadin Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah oo juhdi badan iyo waqti badan geliyay inuu dalkiisana u shaqeeyo isna aqoon ahaan isdhiso oo dhawaanun soo qaatay aqoon sare oo uu jaamacadaha cariga Ingiriiska u tagay barnaamijkan scholarship kala yiraahdo Shevering scholarship isagoo markaas ay ka helay taageero dabcan hayduna ay fasax siisay si uu aqoonta u soo korodhsado marka ugu horeysa Ilaahay subhanahu wa ta'ala jannada ka waraabiyo dhamaanteena aynu duceyno qoyskii awradiisii ubadkiisii ehelkiisii qaraabadiisii iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeedna Ilaahay sabri iyo iimaan ka siiyo waxaanu si dhow ugu kurgaleynaa oo indhaha ku aynayna duruuftii ku dhintay mas'uuliyad heerar kala duwan ayaa naga saaran in la hubiyo badqabka muwaadinka Soomaaliyeed meel walba joogo arintaas ilaa iyo markii dhacdada la soo tabiyay ilaa iyo hadda si dhow ayaanu indhaha ugu haynaa waxaanu ka rabnaa laba shay waa mid annagoo u daynayna annagu hay'adaha baanu nahay xukuumadda ee fulinta waxa jira hay'ado si khaas ah oo u igman arrimaha baadhista xuraanka dabagalka iyo arrimaha amniga annagoo u daynayna doorkooda haddana indhahaanu ku haynaa in baadhistaasi ay si quman oo waqtiyeysan oo sugan u dhacdo si loo hubiyo inuu marxuumkaasi helo cadaalad dhacdooyinka noocaasana wax looga barto lagana feejignaado lagana tababshaysto طبعا maalin walba dambi baa dhaco waa la dhintaa laakiin in dhalinyaro ah oo aan bela qabino gurigiisii lagu helay isaga oo meeda oo waliba ay duruufo adag ka muuqdaan waxaanu ka dhursugaynaa baadhista ay keeneen hay'adaha amnigu laakiin arintaasi arin indha lagu haynayo way intaasina waa qodob kale oo noo weheliyay inaanu idin tacsiideyn waxay taasi ahmiyad weyn ugu fadhidaa in hawlwadeennada dawladda Soomaaliyeed badqabkooda la ilaaliyo waan loo golaha wasaaradda waxa lagu sheegay inuu intuu kala soo galay macallinkii eheladiisa wuxuu dhagay intuu tooriis ka soo jaray uu dhunta ku dhuftay wada maqasheen Soomaha inay wada mudaharaadeen macallimiintii sida taa aanu golaha uga hadalnay ay warku uga soo baxay
baanu tanna indhaha ugu haynaa muwaadiniinta Soomaaliyeed waa inay cadaalad siman helaan intaas waa inta shaqada aad haysan waa shaqooyinka ugu mudan ee ugu sharfan haddii aad tihiin bahda duulista hawada khaasatan hay'adan waa shaqo minidkiiba iyo mar walba aad ku ilaalinaysaan nafta iyo badqabka muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo dadyowga kale caalamka adduunka ee maraya hawadeena waa shaqo sharfan waa shaqo adag waa shaqo u baahan xirfad iyo xeeldheeri deganaan iyo dadnimo طبعا intiina ka shaqeysa intaas lagu soo xushay marka naftarkiina in si guud leydin ka warqabo weey axmedow dhalinyarada ka soo jeeda deegaanada waqooyiga waa ogtahay duruufta halkan ay ku yimaadeen qaarkood waad ka dhareegsantay waxaad ogtahay waayaha ay ku sugan yihiin oo qofkii xataa inuu qoyskiisii soo booqdo ay ku aragtahay marar fara badanna tabashooyin iyo cabashooyin baa dhagahayga soo gaara waxaa la rabaa inaad si feejigan oo fiirsasho leh inaad uga warqabtaan duruufta nololeed iyo waayaha ay ku sugan yihiin taasina waa dhambaal aan idin wado qolooyinkiina maamulka waa waajib idin saaran dadkani waxay hordhac u yihiin malaayiin kale oo aanu ku rajo weynahay dhawaan in qaxindaabkan qarannimada Soomaaliyeed duruuf walba hadda jirta la sugo aasaasna waxa uu ah cadaaladda iyo xaq soorka oo lagu soo hiranay